Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada channelkeena. Insha Allah maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa 10 actor ee ugu lacagta badan dunida, ha ahaato dhanka Bollywoodka iyo weliba Hollywoodka. Video haddaa ka hesho like, subscribe ha ka hilmaamin. Insha Allah tacaala kusoo dhawaada barnaamijkeena. Bill Cosby waa jilaa Mareykan ah iyo agaasimo si weyn loo qadariyo. Qiimihiisa saafiga ayaa weli lagu qiyaasay inuu ku dhow yahay $400 milyan, taasoo ka dhigaysa inuu yahay jilaaga 10aad ee ugu taajirsan dunida. Jack Nicholson waa jilaaga 9aad ee ugu taajirsan adduunka sanadka 2019. waxaa caan ku ah aflaantiisii guulaha badan laga gaaray ee One Flew Over the Cuckoo's Nest, kaasoo ahaa guul weyn, waxaana lacagtiisa lagu qiyaasaa $400 milyan. Amitabh Bachchan waa mid ka mid ah aktarooyinka ugu caansan filimaanta Hindiga, kuwaasoo si kale loogu yaqaano Bollywoodka. Waa ninka 8aad ee ugu taajirsan adduunka, waxaana lacagihiisa lagu qiyaasaa $400 milyan. Jilaaga Mareykanka ah ee Adam Sandler waa jilaaga 7aad ee ugu taajirsan sanadka 2019. Sandler wuxuu sameeyay filimaan guulo soo hooyay asigoo haysta lacag dhan $420 milyan. Mel Gibson waa jilaaga 6aad ee ugu qanisan adduunka. Qiimihiisa saafiga waxaa lagu qiyaasay $425 milyan. waa mid ka mid ah aktarada ugu caansan dunida. George Clooney waa jilaaga 5aad ee ugu taajirsan adduunka, isagoo leh qiimo dhan $500 milyan. waxa uu caan ku yahay doorkiisii filimada Ocean Eleven iyo Syriana, kuwaas oo ahaa dhammaantooda filimo aad u sareeya. Jilaaga caanka ah ee Tom Cruise waa jilaaga 4aad ugu taajirsan adduunka, isagoo leh qiimo dhan $570 milyan. waa mid ka mid ah aktarada ugu caansan uguna filim soo saarista badan dunida. Tyler Perry waa jilaa Mareykan ah, waana jilaaga 3aad ugu taajirsan adduunka, isagoo leh lacag dhan $600 milyan. filimadiisii ugu macaashka badan waxay ahaayeen Diary of Mad iyo weliba Why Did I Get Married. Shah Rukh Khan waa jilaaga 2aad ugu taajirsan adduunka, isagoo leh hanti fara badan oo gaaraya $760 milyan. Khan waa jilaa Hindiga ku guuleystay abaalmarino badan, waxaana loo yaqaanaa boqorka Bollywoodka. jilaaga ugu taajirsan adduunka maanta waa Jerry Seinfeld. wuxuu leeyahay hanti qaali ah oo cajiib ah oo gaaraysa $950 milyan, taas oo kaliya $50 milyan ka xigta inuu noqdo bilyaneer. Jerry wuxuu caan ku noqday guushii tartamayaasha ee toddobaadlaha ee telefishinka Seinfeld. haddaba daawada, like, share, subscribe, share. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.